ما wada hadlin marka xabsiga nala keenay ilmihiisoo marba hal cunug xambaaray moo ku shushumiyo oo dhigay asagana ilmihi adoo ku kasta xambaaro oo iska dhigayna ka bacdi qol kale nagala galsh saasana ugu wardambayso nimco maxamed xasan muddo laga joogo dhowr iyo 10 sano ayay isguursadeen cabdi cali shin yare oo ay isku barteen dalka Yemen muddo kadibna waxay u guureen dalka Sacuudiga rajo iyo himilooyin fiican ayay kala hayeen noloshooda balse nasiib darro waxa ay ku kala lumeen xabsi iyo tarxiil ay ku galeen wadanka Sacuudiga hadda waxa ay ku nool yihiin nimco iyo caruurteeda oo ka kooban 2 wiil iyo gabar gurigan idiin muuqda kuna yaala xaafadda Liirada Buula Maxay ee degmada Kaaraan iyagoo tabaya garab iyo tiir muhiim u ahaa nolosha gurigooda oo ah odaygii reerka wiilkan ilmaha isku dhalnay muddo 10 sano isla nahnay waxaan iskii wardambeysay Sacuudi Carabiga iskii dambeeyay khaasatan Riyaad ay ugu dambeysay waxa sababay talxiil lagu qabtay waa la xiray wuxuu yiray xaaskiina ma ka bixi karto xaamilo waay hal qabto oo yukana hal geeyo wadankooda hooyo sida yaa unu kana nagu soo qabtay ka bacda an Muqdisho qorta asagana asoo xirana igu wardambeys waxa isku guursanay Yemen isku guursan waa degnaa waa ka shaqaysaa aymaha isku baranay eelkiisna way degnaayeen Sacuudi waxa ku tagnay asaga iga horeeyay Sacuudiga galay hadoo galay muddo sanad iyo 2 bilood camal asoo maqan ka bacdiyo unu ka xabilaadna galsh waayahay qadar oo ah curada qoyskan ayaa hadda sidaad arkaysaan halkan nagu martisooreysa iyada oo sidoo kalena inta badan si maalinle ah u qabata hawsha guriga dareen farxadeed oo aan la qiyaasi karin ayay ii sheegtay Khadra Yari in ay dareemi lahayd haddii mar uun ay u suura geli lahayd aragtida aabaheed oo ah riyada ugu weyn ee nolosheeda Qadar Umar Cabdi Cali Shinyare haye qadar maxaad tusinaysaa aabahe ina helo aabaha goorma kugu dambeysay anoo yariis oo waxba gartin aabahe adeeryaasha iyo dayaasha ehelkeega ina helo araba nimco rajo ahaan maysan niyad jibin waxayna weli naawilaysaa in caruurteedu ay dib u helaan aabahood culays ayayna sheegtay inuu hadda ka haysto dhanka dhaqaalihii lagu dabari lahaa waxbarashada iyo nolosha guud ee caruurta waa raadii wareysadaad waa galnay waana weyno wax kamida ama wax sheegay mala arag waa la helaa waa dhahay waa la helaa intaas walwal ku noola ahayn rajo ku noola ahayn dhaqaalaha waa iska birina waa la iska helaa marna waa la iska waayaa waxa saad u jirto waxbarasho la'aana hayso caruurta xuseen oo ah yaraanka reerka ayaa codsanaya in loo rumeeyo filashadiisa ku aadan helitaanka aabihii iyo ehelka kale ee ka maqan حسين عمر عبد الشيار waayahay xuseen maxaad codsanaysaa عبينا هيرو إنا نرتاح حريري إيدياتي يا بي inkastoo dadaal aysan u yareysan waxbana aysan ka hagran nimco waxaa korinta caruurta hadda ay abaal uga haysaa walaalaheed oo iyaguba la tacaalaya xaaladda qoysaskooda sidaas oo ay tahayna garab taagan Shariifa Maxamed Xasan ayaana kamid ah walaalaha nimco qoyskan walaahi dhibaato culus ay sawaay abood aan gacanta ku haynin muddo 10 sano ah waxbarasho la'aan hayso dhaqaale la'aan hayso umada Soomaaliyeed inta taqaano waxa lagu codsadaa in abood la soo xiriiriyaan abood oo la dhahayo Cabdi Umar Shinyare heer Shinyare qoyska heer Shinyare cid walba cidina maqlayso waxaan ka codsanaynaa in la soo xiriiraan deegaan waxaan ugu sheegay tuulo la dhahayo Bible inay degan yihiin oo heer kilinka shanaad ay yihiin waxay yihiin qabiilka la dhahayo Jecel abta sameeyay yihiin la yiri xasuusta ku aadan saygeeda iyo ehelkiisa iyo halka ay hadda ku malaynayso ayaan weydiiyay nimco waxaana ay markaasi baaq u dirtay cid walba oo heli karta macluumaad ku saabsan qoyska saygeeda in ay markaasi
degdeg ula soo xiriiraan. qaraabadiisa degneed ehel qoys oo saa'ida ma degnayn laakiin ilma adeeradiisi aad degnaayeen maha jaamacad ka baranayeen jaamacatul imaam ee la dhahayo waxyaabo kale oo xasuus ah sabir way jireen laakiin soo ma qaad waa leega soo talxiilay sabiradii Sacuudiga ugu soo tagay walaalihiis waxaa ka kasaa walaalkiis oo la dhahayo Badri Cabdi Cali Shiinyare walaalkiis kale Xaanshi Cabdi Cali Shiinyare walaashiis Faaduma Cabdi Cali Shiinyare hooyadiis oo Nabashi Cabdi la dhahayo abootada haddana gacan kuma haayo alaha soo dada hadday la maqlaayaan qofta aan qof cidi garaheeso hana la soo xiriiraan sidaad u jeedaan qoyska hadda waxaa ka maqan Maxamed oo ah curad ku xigeenka qoyska oo hadda naloo sheegay inuu ku maqan yahay dugsi quraan oo markaas dhigto waxaana qoyskan ay wadajir u dalbanayaan in ay helaan aabahood oo ka maqan muddo ku dhow 10 sano waxaana caruurta iyo qoyskan ay filashadoodu ay tahay in mar un ay la midoobaan ehelkoodii kale ee ka maqnaa oo ugu horeeyo aabahood maxamed cabdi xasan iidle dalsan TV muqdisho